waxaan rabaa inaan ganacsatada reer Puntland u sheego inay jirto lacag dollar ah oo been abuur ah. lacagtaas waxaana soo gaarsiiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Cornel Layli. lacagtan sida ka muuqata waa mid qofku ku garan karo qaradeeda oo yara adag. waa lacag dollar ah ilaa hadda waxaanu haynaa waa boqol oo dawladdu gacanta ku hayso. lacagtaas inteeda badan waa isku lambar gacanta marka aad ku jajabisid waxaad garan kartaa inay jactadayso oo ay tahay lacag la been abuuray oo A4 ah. kolle waxaan filaynaa inay wadanka oo ka soo gashay dibadda ay ka soo gashay aanay Puntland gudaheeda jirin madbacad lagu daawaco inta aanu ka warhayno oo Puntland dawladdu way ka warhaysaa. dhinaca nooga timiba ha ahaatee waxaan uga digaynaa ganacsatada reer Puntland inaan lagu tagin oo lagu hantidooda lagu dhicin isla markaana aanay dadka gelinin inflation iyo dhibaato xumo dhaqaale. qofka waxaan ku kacayaana kolle waa qof ku talagalay inuu ummadana ku dhaco waxaan jirin oo waraaqa ah isla markaana uu manjaxaawada ummadda iyo dawladda Puntland iyo qarankaba uu cadow ku yahay. shacabka reer Puntland waxaan ka codsanaynaa cidii lacagta aragta inay u gudbiso hay'adaha amniga isla markaana qofkii lagu qabto aan la qarinin loo dhiibo hay'adaha amniga si tallaabo looga qaado. lacagtan aan gacanta ku hayno hadda waxa u xidhan dad baa u xidhan dambiilayaashii lagu qabtay sida ay ciidanka boolisku taliyaha qaybta soo ogeysiiyay gacanta ayaa lagu hayaa boolisku way baarayaan maxkamadda waa lagu geyn doonaa cadaaladda ayaa dadka la marin doonaa. waxaan markale leenahay ganacsatada ka digtoonaada inaan la idinku dhicin fadlan hana qarinin cidda la dhacayaa waa dhaqaalaheedna waa dhaqaalaha ganacsatada tiina weeye. sidaas darteed inaad ka taxadirtaan dadka shacabka ah inay meel uga soo wareejistaan dawladana dabagalka arrintan gacan lagu siiyo dambiilayaashana waa la daba socdaa meelay joogaan insha Allah cadaaladda ayaa la keeni doonaa.